laba arrimood Mareykanku uu loobi gareyn karaa dalal badan buu albaabada uga furi karaa laakiin United Nations iyo adduunyada jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa iyo AU-da iyo Arab League iyo IGAD iyo waxa soo dhan way ku adkaanaysaa inay ictiraaf siiyaan ilaa inta ay dawladda Soomaaliya xamar fadhida ictiraafka cid laga doonayo waa wadamada isku ma jiraan ictiraafka cid laga doonayo waa wadamada super powerada waxana diidi kara waxana yeeli kara sida Mareykanka wadamadaas aqoonsiga bixiya ayaana fadhiya qaramada midoobay IGAD jaamacadda Carabta inkastoo Carab iyo Afrikaan waxba aan la weydiinba haddii ay ictiraafaan Somaliland Mareykanka Ingiriiska iyo Faransiiska iyo xulafadooda Carab iyo Afrikaan ayagoo aan loo yeeran oo aan la weydiisan ayay ka daba aqoonsanayaan waayo dantooda ku jirta midda kale Soomaalida ninkan hadda ka sheekeenayo maba jirtaba yaa aqoonsaba Soomaaliya waxay ku jirtaa chapter 7 gumeysi dadban jagada koofila maanta waxa ka haya Soomaaliya James Wam ninka ay dhageystaan waxana ka weydiiyaan arrimaha Soomaaliya marka lacagtan ay siinayaan maamulka Xasan Sheekh ciidamadan haddii ujeedkoodu yahay Puntland oo dagaal Daesh ku jirta inay dagaal labada ku soo qaadaan ha ogaadaan Puntland inay taageero military iyo mid dhaqaale ka heli doonto Somaliland waayo heshiiskii dadaada kor ee galeen Puntland iyo Somaliland ayaa dhigayaba laba dhinacba inay iska kaashadaan dhanka amniga maamulka Xasan Sheekh iyo kooxda Daeshna kaliya qatar kuma aha Puntland waxay qatar ku yihiin amniga guud ee Somaliland Puntland oran mayno Puntland ma ay soo weerarin laakiin waxaan soo weerartay galabta shacabka Boocame iyo degmada Boocame soo weeraray koox ku saaqiday siyaasad lacagtana gaaraysa 5 milyan-ka xalay saacadii dhexe maamulka Xasan Sheekh ay u fasaxeen qaybo ka mid ah ciidamada maamulka Puntland walaal ay ka baahan yihiin jabhadda Soolbare ee taageerada maamulka Xasan Sheekh jabhaddaas waxa la sheegay ciidamadooda 5 bilood ugu dambeysay inaysan wax mushaar ka helin maamulka Xasan Sheekh qudhoodana saacadii ugu dambeeyay lacagtana xalay tiimka Xasan Sheekh ay u fasaxeen Puntland isku filaanshaha gaadhay way ka carasayeen bismillaah saaxiib bal jamco wanaagsan ku soo dhawaada madal furan anigana waliban Maxamed Aadan aan ku bilaabay mowduucan caawin ka idii muuqda inta badan waxa looga bartay inuu si nagtif uga hadlo arrimaha Somaliland wuxuuna aad u diidi jiray qadiyadaha iyo jiritaanka dadka reer Somaliland bilihii ugu dambeysay intuu taagnaa hadalhaynta Mareykanku inuu ictiraafay Somaliland ninkan wuxuu ka mid ahaa Soomaali badan oo qaada dhigiisay ictiraafkaasi Mareykanka uu sanay Somaliland ayagoo markaana sheegi jiray dad uu ka mid yahay ninkani Mareykanku inuu san marnaba aqoonsan doonin Somaliland hadda ninkan wuxuu noo wadaa war ka duwan warkii uu noo sheegi jiray libintaada inaad ka maqasho ama ku qiraba qof shala ka soo horjeeday waa guul aad u weyn guushaasna ma ahan mid iska timid haddii Mareykanku ictiraafo dawladda federaalkana ay weli ku dhagan tahay federaalku ay ku dhagan tahay dhibaato ay noqonaysaa sababta waxa weeye laba arrimood Mareykanku uu loobi gareyn karaa dalal badan buu albaabada uga furi karaa laakiin United Nations iyo adduunyada jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa iyo AU-da iyo Arab League iyo IGAD iyo waxa soo dhan way ku adkaanaysaa inay ictiraaf siiyaan ilaa inta ay dawladda Soomaaliya xamar fadhida ay leedahay ma siin karno haddii iyadu ay sii deyso waa halkeeda laakiin haddaanay sii deyn ma dhacayso talabaad waxa weeye waxa jira Trump inuu ka talaabsado waa dhici kartaa laakiin isafgarasho la isafgartay baa jira IGAD AU iyo United Nations iyo Mareykankaba wixii Afrika in horta marka hore Afrika heera lagu soo dhameeyo marka dabadeed la geeyo marka AU-du aad iyo aad bay uga markii horena way ka cagajiday tii Suudaan laakiin tan mar waaxid aad bay uga cagajiidaysaa waxa mustaqbalka dambe ay ku yeelanayso Afrika baa aad iyo aad looga baqayaa because territorial boundaries Soomaaliya ee 1963 ee OU ay ictiraaftay oo principle-kana kamid ah qodobada u dejisan AU-da baa horta markii ugu horeysay lagu gafayaa taasna aad bay uga cagajiidayaan laakiin Mareykanku hadduu rabo gaar ahaan xilligan President Trump inuu unilateral ama jid isaga u gaar ah uu qaato لازم uu qaadan karaa marka hardanka hadda ka dhaxeeya dadka u shaqeeya Somaliland iyo dadka u shaqeeya dawladda dhexe ee Soomaaliya waa halkaas intan Trump jooga ay sheekadu aad u kululaanaysa oo dawladdiina isku mahaleyn karto shuruucdii awal tahay iyo dhaqankii ahaan jiray dadka loo daayo goboladooda iyo waxsaasa Somalilandna inta karaankeeda intan Trump joogo way ka faa'iideysanaysaa because Trump waxa lagu yaqaanaa inuu yahay shakhsi wax la yiraahdo transactional maxaad haysaa aad siinaysaa ana aan ku siiyo intaan aqoonto lahayn kan magaciisa wax la yiraahdaa Faysal Rooble dhawaan wuxuu ka mid noqday 9 xubnood oo ku matalo doona Soomaaliya baarlamaanka bariga Afrika xubintan ninkan wuxuu ku helay guuloodanta Xasan Sheekh ninkan qabiilkiisana waa gari Gombe waxyaabo la yaab kale waxay tahay dadka inta badan sida caadifsan uga hadla arrimaha Somaliland waxay ka soo jeedaan qabaa'ilka laga tira badan yahay maarkiisa qof ka soo jeeda qabaa'ilka waaweyn Soomaalida
oo si cad fasal uga hadlay arrimaha Somaliland xitaa dadkaasi aan soo sheegay ayagoo diidan arrimaha Somaliland iyo qadiyadeedaba ayay runta ka sheegaan wax walba ku saabsan Somaliland kuwa ninkan uu ka mid yahay oo ka soo jeeda qabaa'ilka laga tira badan yahay caloosha ka hadlaan ninka ay dib muuqda magaciisa waxa la yiraahdaa Falagle wuxuu ka mid yahay siyaasiyiinta beesha Hawiye gaar ahaan kuwa ka soo jeeda habar gidir ninka kale isagana ay dib muuqda ninkan qabiilkiisa ma aqaan laakiin waxa qiyaasayaa inuu ka soo jeedo deegaanada Puntland haduusan ahayn ma jarteen labada nin soo isku mid ah waxay u sheegayaan ama ay u qirayaanba in la joogo xilligii la aqoonsan lahaa Somaliland taasi micnaheedu kama dhigna labada nin inay ogol yihiin in la ictiraafo Somaliland wayba ka soo horjeedaan aqoonsiga Somaliland sida hadalkooda ka muuqata laakiin runta ayaa ah in la aqoonsanayo Somaliland midana maahan ayaga waxay wax ka bedeli karaan soddon wadan oo hogaaminaya Mareykanka ayaa mar horeba qalinka ku duugay aqoonsiga Somaliland koox kale fara badanna waxay sugayaan kaliya intuu Mareykanka kaga dhawaaqayo aqoonsiga Somaliland cabdiraxmaan iyo dawladdiisu hadday ka badbaado beesha xisaab bisheeda kale ama Somaliland oo la aqoonsaday buu keenay ama Somaliland iyo Soomaaliya midoobay oo jamhuuriyad isla qaatay xora oo sharaf leh ayaa amaanaysa inta ay socotay arinta Somaliland markaad eegto maanta sida ay tahay maalin ugu dhowdahay ma jirto in ay hayso qaab nooc rabaha ah qaab ka mid ah aqoonsi ama markuu ugu yaraado u dhawaan kara yani in la siiyo nidaam gooni ah markii loo eego nidaamka dowladnimada Soomaalida arrinkaas sida loo fahamsan yahay sida la rabay in loo fahmo looma fahmin waliba run ahaan markii la eego ninkan odaga marka hore magaciisa ma sheegin waa ka tagay hadal si hilmaamka ma jiro magaciisu waa professor Keenan professorka wareyskan u baxashay si qotar uga hadlay taariikh inta badan ay dafiraan ama ay ka been sheegaanba Soomaalida shalay ugu dambeysay munaasabadii carta taariikhdaas waxa ka been sheegay ama dafareba geelaha Djibouti isaguna geelahaasi taariikhda Somaliland dusha ka saaray Soomaaliyadii ay ka hor xorowday Somaliland yani haddii dadku aanay runta sida ay tahay ka sheegin arrimaha jira dalkii Soomaaliyeed ee gumaysigu kala qaybiyay buqcadii u xorowday ugu horeysay xorowday Somaliland bay ahayd caasimadii ugu horeysay ee xorowday Hargeysa ayay ahayd magacii ay wateen Somaliland ayuu ahaa miyaana maxay ku suura gashay intii midna inaanay noqonin siyaasadda dalka waxa lagu saameeyo oo saameyn ku leh sidee bay ku dhici kartaa taasi waxay ka dhigan tahay doodaadu Somaliland garowshiye u leedahay doodeeda garowshiye kaliya ma aha anigu waxaan aaminsanahay magacii koobaad ee saxa ahaa ee dalka loo bixin karay actually inuu Somaliland ahaa waa dhulka Soomaalida waana magaca saxda ah in la qaato la rabay sabab meeshii u horeysay ee caasimad ummad Soomaaliyeed oo xorowda ay ahayd ay iyadu u noqon weyday meel dadka Soomaalida taariikh ahaan ka mudan xurmad ka mudan oo ah in lagu xurmeeyo ay ahayd anu ma fahmi karayo xaqiiqda runaantii ma fahmi karayo haddii labada nidaam ay isku darsaday laba nidaam oo dawli ay ahaayeen waxay ahayd in si kala loo qaabeeyo oo aan simple la oran dadka Soomaalida ah waa isla Soomaali therefore sida hal yeer tusaale yar baan ku siinaya nidaamka waxbarashada markii la mideynayay 9 sano ayuu qaatay 9 sano ugu horeysay nidaamka labada nidaam ee waxbarasho yaa fiicnaa midna waa laga guuray oo wuxuu ahaa kii Talyaaniga waxaa loo wareegay nidaamka Ingiriiska dadkii ugu xoog badnaa ee maamulayay dalka markaad eegto waxay ahaayeen dad waqooyi ka yimid bay ahaayeen jaamacadahay joogeen wasaaradda waxbarashada joogeen arrimaha dibadda joogeen kulli waa la wada garanayaa waayo nidaamka waxbarashada ee ka jiray waqooyiga xilliga ma ahayn mid baahsan oo dadku dhan wada gaaray laakiin quality ahaan wuu ka fiicnaa haddaba aan ku laabtay hadalka Faisal Roble hadalkiisa Faisal waxa ku jira haddii Mareykanku ictiraafo Somaliland ictiraafkan ay ka hor yimaadaan ama ay diidaan Soomaaliya dhibaato ku noqonaysa Somaliland inta wuxuu sii raacay Faisal Somaliland Mareykanku dalal badan albaabadooda ayuu furi karaa calaashan wuxuu horseedi karaa Mareykanka inay ictiraafaan Somaliland dalal badan laakiinse qaramada midoobay IGAD jaamacadda Carabta
inay ictiraafaan somalilan wuxuu ku xiri doonaan ogolaansho ay ka helaan soomaaliya taana waxba kama jiraan ictiraafka cidda laga doonayo waa wadamada iskuma jiraan ictiraafka cidda laga doonayo waa wadamada subarbawarada waxaana diidi kara waxaana yeeli kara sida maraykanka wadamadaasi aqoonsiga bixiya ayaana fadhiya qaramada midoobay igad jaamacadda carabta inkastoo carab iyo afrikan waxba aan la weydiinba haddii ay ictiraafaan somalilan maraykanka ingiriiska iyo faransiiska iyo xulafadooda carab iyo afrikan ayagoo aan loo yeeran oo aan la weydiisan ayay ka daba aqoonsanayaan waayo dantooda ku jirta midda kale soomaalida ninkan hadda ka sheekeynayo maba jirtaba yaa aqoonsaba soomaaliya waxay ku jirtaa chapter 7 gumeysi dadban jagadii koofila maanta waxaa ka haya soomaaliya james wam ninka ay dhegeystaan waxaana ay ka weydiiyeen arrimaha soomaaliya ee un-ka xitaa xasan sheekha sheegta inuu ka yahay soomaaliya madaxweyne un-ka ma dhegeystaan shalay ugu dambeysay james wam wuxuu fadhiyey sida hadda ka muuqto shaashadani xagga hore wuxuu ka fadhiyey munaasabadii lagu xusayey shirkii carta 2000 xasan sheekh talaabo kasta uu qaadayo isagoo aan kala tashan ninkan cadaanka ah kuma dhiiran karo marka haddii bay dhacdo un-ka inay cid wax ka weydiiyaan arrimaha soomaaliya cidda ay ka wareysanayaan waa ninkani ee cadaanka ah oo hadda xukuumadeenu dalka oo dhan kama taliso iska daa dalka oo dhane xamar kama taliso maalan xalani wasiiradu hadday rabaan inay galaan aeroboortka waxaa baaraya maxaa la yihahdaa askari ugandesa oo wasiirka dhahaya itus maaragtay kaarkaaga inay wasiir tahay hadduu rabo gaariga kaa soo dejinaya marka maxaad ka sheegaysaa aragti safiir iyo madaxweynayaasha gobolada inay meel aadaan iyo waxaas yacni adoo wasiirkii dalkaagii jooga ayaadan aeroboortkaagii geli karin ilaa waa askari maxaa la yidhaahdaa uu ku baaro ugandesi dhinaca kale saacadihii ugu dambeeyey soomaalida weerar afka waxay kusoo qaadeen ayaa xirisay muddooyinku dambe kusoo biirtay aqoonsi raadinta somalilan ayaan deegaankeeda oo puntland oo majeerteen diblomaasiyaddii madaxweyne ciro way shaqaysay dadka ugu badan hadda duulanaya aqoonsiga somalilan waxay ka soo jeedaan deegaanada puntland ayaan marka muddooyinka dambe waxay aad u taageersaneed in la aqoonsado somalilan iyadoona kasoo muuqanaysa ayaan fagarayaasha si cadna u sheegaysa inay xaq u leeyihiin dadka reer somalilan in la ictiraafo waana inta lagu cilaadiyey marka soomaalida hadda iyagoo xuqunaya kaarka diinta islaamka waxay weerar afka kusoo qaadeen ayaan xirsi taana ceebtooda ma ahane waa munaafaqadii lagu yiqiinay soomaalida midka ku xadgudba diinta islaamka ama ka baxaba ee aaminsan haddana soomaali weyn waxay u yaqaanaan reer soomaaliya inuu yahay haliyey halka midka la midka ee taageera somalilanna ay ugu yeeraan magacyo la mid ah kuwa hadda ay ugu yeerayaan ayaan xirsi ninkan hadda magaciisa lagu sheegay faysal rooble 10 sano kor waxa laga weydiiyey diinta islaamka iyo inay ku dhaqmaan diintaasi ee soomaalida wuxuuna ugu jawaabay sida tan diin ma ku dhaqmanaynaa anigu I will say no it's better dad inaga muslimsan ma jiro haddii aadan cadiy cabdirashiid iyo dawladoodii aad aragto dad muslimiin oo cidna fasax kaga qaadanayn bay ahayn muslimiin they were not trying to prove inay muslimiin yihiin dad muslimiin sharaf leh bay ahaayeen sidaana dalkooga way ku wadeen waxaan maanta ina haysta waa wax dibadda ka yimid kan federaalka ha ka warwarin dibadda kan al-shabaab ee damal jadiidka ah ee diinta islaamka sheeganaya ee saacadii wacdidii waxaanan dhegaysanaynba kaa ka warwar baan ku odhan lahaa anigu and I am against in Soomaaliya lagu dhaqo diinta mutaxan ee radical islamic sheeganaysa ugu dambeyntina ku saaf meera mowduucan caawa sida hadda ka muuqto shaashadani lacagtan $200 ah waa lacaga mushaaraada xalay saacadii dhexe maamulka xasan sheekh ay u fasaxeen ama ay u dareenba ciidamo ka tirsan ciidanka maamulka Puntland ciidankaasoo asaaskiisa marka hore ay lahaayeenba siyaasiyiin sanadii dambe isku hayeen siyaasadda maamulka Puntland siciidani hogaamiya maamulkaasi Puntland siyaasiyiintaasi markii looga adkaaday ama uga adkaaday siciidani siyaasadda maamulka Puntland waxay ku biireen ama la safteen maamulka xasan sheekh cadowgaaga cadowgiisa saaxiibka siyaasiyiintaasi ka soo carooday maamulka Puntland xasan sheekh Soomaaliya ama Muqdisho wuxuu ka siiyey xilal waxaana ka mid ah siyaasiyiintaasi ninka hadda ka ah Soomaaliya taliyaha ciidanka booliska iyo ninka ka ah Soomaaliya wasiirka arrimaha gudaha labadaasba waxay ka soo jeedaan maamulka Puntland waana siyaasiyiinta isku qabteen siyaasadda Puntland siciidaniga hadda hogaamiya maamulkaasi Puntland mushaaraadkeeda ciidamadeeda iyo shaqaalaheeda ku filan tahay waana maamul kaliya leh 2 dekedood iyo 3 xarbood caalami ah maamulka Puntland mushaaraadkeeda ciidamadeeda iyo shaqaalaheeda ku filan tahay waana maamul kaliya leh 2 dekedood iyo 3 xarbood caalami ah tiimka xasan see lacagtan ujeedka kaliya waxay tahay ciidamadaasina u isticmaalaan qalqalgelinta systemka siciidan iyo Puntland ayaga markaana tiimka xasan isticmaalaya siyaasiyiintaasi ee ka soo jeeda Puntland kana careysan hogaamiyaha maamulkaasi ee siciidani
mushaaraadkan ciidamada u fasaxeen maamulka xasan sheekh waxay ku sheegeen tiradooda 2500 askari wayse ka yartahay intaasi ma gaaraan toodasi haddii loo raaco 2500 askari haddii lagu dhufto $200 waa lacag ku dhow $500,000 lacagtaasi tiimka xasan haddii ay ka tahay daacad waxay ku taageeri lahayn dagaalka buuraha calmiskaad oo 2 sano dagaalkaasi u socday maamulka Puntland aysan wax taageera aysan ka helin systemka iyo maamulka xasan sheekh Soomaaliya ciidankan xalay mushaarka ay siiyeen tiimka xasan sheekh qayb kama ahayn dagaalka buuraha calmiskaad bal ciidamadaasi 2 sano ugu dambeysay dhowr mar wuxuu isku hormaad ku dhaxmaray ayaga iyo ciidanka maamulka Puntland magaalooyin ka mid yihiin Boosaaso iyo Garowe marka lacagtan ay siinayaan maamulka xasan sheekh ciidamadan haddii ujeedkoodu yahay Puntland oo dagaal daacish ku jirta inay dagaal labada ku soo qaadaan ha ogaadaan Puntland inay taageero military iyo mid dhaqaale ka heli doonto Somaliland waayo heshiiskii dadaada kor ee galeen Puntland iyo Somaliland ayaa dhigayaba laba dhinacba inay iska kaashadaan dhanka amniga maamulka xasan sheekh iyo kooxda daacishna kaliya qatar kuma aha Puntland waxay qatar ku yihiin amniga guud ee Somaliland lacagtan gaaraysa $500,000 xalay saacadii dhexe maamulka xasan sheekh ay u fasaxeen qaybo ka mid ah ciidamada maamulka Puntland waa lacag ka baahan yihiin jabhadda Soolbare ee taageerada maamulka xasan sheekh jabhaddaas waxaa la sheegay ciidamadooda 5 bilood ugu dambeysay inaysan wax mushaar ka helin maamulka xasan sheekh ku dhowdana saacadii ugu dambeeyay lacagtan xalay tiimka xasan sheekh ay u fasaxeen Puntland isku filaanshaha gaadhay way ka caraysnaayeen jabhadda Soolbare intaana soo afmeeray mowduucan caawi deegaanka Boocame maalmihii ugu dambeeyay waxa ka taagnaa xiisado u dhaxeeyay maamulka Puntland iyo jabhadda Soolbare maanta ugu dambeysay gelinka dambe maantay deegaankaasi Boocame isku hormaad kooban wuxuu ku dhaxmaray ciidamo ka marqaata maamulka Puntland iyo maleeshiyaad ka tirsan kuwa jabhadda Soolbare isku hormaadkan wuxuu ka dhashay kadib markii ciidamada maamulka Puntland ka hor istaageen deegaankaasi Boocame inay gudaha u soo galaan wafti iyo ciidamo ay wateen oo ka yimid dhanka Laascaanood inta hadda lahayn wax khasaaraha kuma uusan dhalan isku hormaadkan maanta ku dhaxmaray deegaankaasi Puntland iyo jabhadda Soolbare labada dhinacse waxay wadaan mid kasta wuxuu wadaa hub aruursi waxaan u dulqaadanay muddo 2 sano kooxdaas dhagarteeda dib uma dulqaadan doono dib kooxda anagu Puntland oran mayno Puntland ma ay soo weerarin laakiin waxaanu soo weerartay galabta shacabka Boocame iyo degmada Boocame soo weeraray koox ku saaqiday siyaasadda ku saaqiday oo go'aankeeda iyo amarkeeda ay fulinayaan Siciid Abdullaahi Dani iyo Lugator ayaa soo weeraray